soo dhawaada daawadayaal muuqaalkan wuxuu idiin sidaa fursad waxaan idinkula wadaagayaa koorso English bilaash ah oo shahaado leh koorsadan waxaa loogu talagalay dadka aan luqadda Englishka ku hadal ama aysan ahayn luqadooda rasmiga ah ee ay ku hadlaan si gaar ah koorsadu waxay ku socotaa ama lala rabaa inay ka faa'iideystaan dadka u helan barashada luqadan wariyaasha ku dhex jira hawsha ardayda jecel haddana barta mihnada saxaafadda iyo dhammaan inta danaysa wax isbaridda joogtada ah waxaan filayaa intan midkood inaad ka mid tahay nala booqo website-ka ay koorsadu ku diyaarsan tahay waxaan booqanaynaa bogga Canvas oo koorsadan iyo kuwo kale laga helo nala soco booqasho ilaa iska diiwaangelin koorsada magaceeda ayaan halkan ku qorayaa koorsada ayaa noo soo baxaysa waxaa noo soo baxday koorsada halkan ay ku qoran tahay enroll waa halka la iska diiwaangeliyo koorsada magaceeda waa English for Journalism halkan waxaa ku qoran macluumaad sida koorsada xilliga ay bilaabatay waxay soo bilaabatay 20 Abriil sanadkan 2020 waxay ku egtahay 19 Oktoobar isla sanadkan waxay soconaysaa muddo 12 toddobaad isbuuc sitimaana isbuucii waxaa loogu talagalay qofka inuu qaato 3 saac ilaa 4 saac oo xiisad ah wax shuruudaha kuma xirna sida inaad maado gaar ah soo baratay inaad darajo gaar ah haysato qof walba ayaa baran kara nooceeda markaan eegno kuma xirna saacado gaar ah sida in lagu yiraahdo saacad hebel soo gal saacad hebel ayaad ka baxaysaa adiga ayaa ismaamulaya xilliga aad doonto ayaad fariisanaysaa ee fursadda leedahay kaliya waxaa muhiim ah inaad duruusta ku dhamayso waqtiga loogu talagalay ugu dambeyn koorsadu qofka ku guuleysta ee si wanaagsan u qaata casharada iyo leyliyada la isku diro ka shaqeeya wuxuu helayaa shahaado free ah haddaan koorsada u tagno halkan waxaa ku qoran faahfaahin koorsada ku saabsan waxaa loogu talagalay dadka doonaya inay horumariyaan xirfadooda luqadda xirfadooda saxaafadda casriga ah koorsadan waxa ay diiradda saari doontaa warbaahinta la daabaco iyo tan casriga ah ee hadda jirta iyadoo la eegi doono waxaa la ballaarin doonaa erayada aad taqaano waxaa la korin doonaa awooddaada aad cilmi baaris ku samayn karto kuna horumarin karto sheekooyinkaaga gudaha iyo kuwa dibadda unitka koowaad waxaad ku qaadan doontaa macluumaad ku saabsan taariikhda iyo xeerarka saxaafadda qaybta labaad ama unitka labaad waxaad ku qaadan doontaa sida loo sameeyo marka aad sheeko qorayso cilmi baaris loogu sameeyo hordhac iyo sida loo sameeyo waraysi ka saddexaad unitka saddexaad waxaad ku qaadan doontaa luqadda loo adeegsado qoridda wargeysyada markaad maqaalada qorayso luqadda aad u isticmaalayso ka afraad wuxuu faahfaahin doonaa tallaabooyin aasaasi ah oo wax loo baahiyo ka shanaad wuxuu diiradda saari doonaa sidii sheekadaada aad u korin lahayd ay u noqon lahayd mid saameyn leh waxaa kale oo unitkaas lagu qaadan doonaa caqabadaha warbaahinta casriga ah halkan waxaa ku qoran hadafyada koorsada laga leeyahay kasii gudub dadka la bartilmaameedsanayo waa kuwa aan hore usoo sheegnay koorsadan waxaa bixinaya American English teacher program markaan sidan u ogaano faahfaahinta koorsada waxaa muhiim ah inaan iska diiwaangelino halkan ugu koreysa waxaa jirta meel ay ku qoran tahay enroll farguduudan halkaas ayaad iska diiwaangelinaysaa waad ku dhufanaysaa waad mahadsantihiin muuqaaladana kale waxaan idinkula wadaagi doonaa koorsooyin kale oo idin anfici doona isla socosho wanaagsan